annaku runtii deegaankan ma aanan qabsan waxaan ka qabsanay shabaabaan hore uga qabsanay laakiin haddeer waxaan ku nimid waxa weeye maadaama aan ayaan moogeyn baan soo booqano soo ziyaaranay waana deegaankeenii dadkeenii ahalkeenii qaraabadeenii kulli ay joogaan waa deegaamadii aan ku dhalanno weeye marka shabaabaan hore uga qabsanay oon ka xoreynay haddana waa ay soo damaaciyeen markay soo damaaciyeen shacabkii dib noogu yeera haddana annaka xoogaa ka maqnayn muddo sidaasaana ku nimid alxamdulillahi rabbil caalamiin haddana waxa weeye waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim in damacoodii ay soo damaacinayeen ee dariiqyada ka jarahayeen oo meesha ka baxo runtii shabaabka waxa weeye dagaal oo dhamna uu yahaba iska aad maahan waa inaad saldhig leedahay gurceel iyo gobolladani waxay ahaayeen inta aan xoreyno hore u xoreynay inta xorta ah waa meeshii bayskii laga duulaya weeye maqcadkii ciidanka weeye markaasaa ayaka deegaamada ay haystaan laga saari karaa laakiin qof hawada jooga oon dhul haysan dhul kale ma difaaci kara mana xoreyn karo sidaa darteed waa maqaacidii ciidamada dhulkaani markaa saas daraaddeed waa laga xoreynaya inta kalena insha allahu alkariim haddii alla idmo ciidamada aad tiri ciidamadii dowladda iyo waa ciidamada hadda aan yacni maalan ba la dagaalamahaya oo diyaarka u ah waa ciidamadii horay yacni ula dagaalamay oo mabda'a iyo fikrigaas ka zuuliya deegaanka ahlu sunna wal jamaaca ka bacdina aan qayb ka mid ah dowladda aan ku wareejinay oo aan doonayna markaas deegaamada galmudug laga haysto in la xoreeyo oo dowladdu awood noo siyaadido laakiin nasiib darro dacfi bay u siyaadida deegaankiiyo waa la moodna qosa weyday buu yidhi inay inta ku taageerto aan deegaankan ka haysto sida ceelbuur oo kale ceeldheer oo kale galhareeri oo kale xaradheer oo kale degmooyinka laga haysto galmudug inay wax ka xoreeyaan waa midii qasadkeennu ahaa laakiin waa noqon weysay markii ay noqon weyso ciidankii laftiisu ay ku hankaageen oo arrintaasu ay dhacday waxaa dhacday inay ciidankii iyo shacabkii dib isu abaabulaan oo ay dhahaan aan dadka iska xoreyno sida aad og tahay gurceel iyo dhuusamareeb inta ka dhaxayda waad ogtahay waxa ka jira oo kala go'day dee dariiqyadiioo la mari waayey wax walbaa iska yimid marka meeshii horumar laga rabay ayaa gadaal taraajuc u noqosho gadaal loo noqdaa timid arrinkaasi marka waxaa yacni dhashay in laysu dhawaaqdo la yidhaahdo aan iska kaashano nimankoo aan iska difaacno cidna uma maqna ceelna uma qodne sidaasaa arrintaasi ku timid marka mar kastana annagu waxaan leenahay dowladda federaalka ah maamul goboleedyada ha ka taageerto siday isu difaaci lahaayeen oo ay deegaamadooda u hormari lahaayeen waayo maamul goboleed kasta cudud iyo caqli iyo cilmi intaba waa dhex taallaa kaabiday u baahan yihiin federaalka uu kaabo laakiin inay dano khaasa ka yeelato danahooda ay ku caburido maahan uma baahna ama ciidamo dana gaara ay ka leedahay ay ka soo dejido oo ay ku caburiso ama ay dagaallo kaleeto kii shabaab aan ahayn ka dhaliso waxba taasi dan maahan waxa waaye dibnoqod weeye waxaan ka cabsanayaa inaad fagaarayaalka facebookyada iyo aada fiirinaan u malaynahayaahoo aad kuwa gaara fiiriso waxaa laga yaabaa yacni inaada daawan laakiin dadweynaha soomaaliya oo dhan baaba u qaylyahay deegaanka maliskaba dhaaf inaan laga xoreeyo oo culimada ahlu sunna wal jamaaca meel kastay joogaan marqaati waxaa kuugu filan meesha la yidhaahdo wisil iyo bacaadweyn iyo intaba iyo baxdo iyo dhulkan waxa difaacayay waxay ahaayeen culimaa diinka ahlu sunna wal jamaaca ahaayeen haddeerna ayakiya hortaagan dowlad ku gacan siinana ma aragti bal ayaana inta yacni la ag tagayo la isku sawiraa laga tegay annaguna hadda waxaas ma naqaan daacadnimaa naqaanaa lilaahi ah waxaan laqdaba lahayn waa waxaan annagu doonaynaa marka waxa waaye alxamdulilaahi dadkaas deegaamadaa jooga marqaati kuugu filan oo annagu dadkan ka mid ahayn ah culimadeennii ah mashaa'ikhdeennii ah ardadii talaamiiddii aan waxbaraynay ah oo iskaashado mabda' ku dagaalamahaya laakiin cid gacan siida oo daacadaho nimankaas in deegaamada laga zuuliyo diyaar u ah unbay leeyihiin ma haystaan dowlad gacan siida in la hodo maahan maamul kaleeto gacan siiya ma haystaan meel cidlaha looga dhaqaaqay waa ogtaa adiga laftaadu maamulkana hadda deriska nala ah oo Puntland aadan ugu mahad celinayaa sidii ay nooga taageereen
يعني أي دهان وإن قلمدو إسكا دفاع ذا الشباب وأنكو إسكا دفاعنا أدي إسكا دفاع ذا وأي كود داقين بابور تكنيكا وأي كود داقين يعني قلب راشين وحول بأي كود داقين بابورتي أنا إسلام وحا لقيدونا وسيل إيا بعادوين إيا بحض إيا لقيدونا إن لغو سو حرية لو سمرهاب وبغال ميل انت لغو شبي markii annaka deegaankeena loo kaga jeedana la soo aaday oo annakii hadda lafteen ma shabaab baana annaka waxaan ku baaqno shabaab halala dagaalamay marka waxaad moodaa afkaartii shabaabka arin ay gadaal ka curunayso ayaad moodaa markii dadkii saas loola dhaqmay gacan haatintoodan ba ku soo noqonay in kastoo dal shisheeye joogidiisa yani aad joogto markaad meelahaas joogday idaacadda ka dhageysanaysaa waa idaacaddii wadankaaga af Soomaaliga dhageysanaysaa waxaad dhageysanaysaa wadankaaga akhbaartiisa wadankii aad ku dhalatay waxa waaye aad iyo aad mar walba waa u hilowsantahay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin gacan haatintaas iyo danqasho aan ka danqanayno waxaan soo marna dib in la kugu celiyo mar labaad gurceel geeskiisaan labilay waxa ku jaala bohol weyn oo 56 shahiid hal maalin lagu wada aasay oo raggi waa weynaayo Sheekh Xuseen Cabdi Cami kamidin hogaaminayeen ma saasay ugu leedan raggi culimada meesha ugu dhamaadeen oo deegaankiina nabada Ilaahay ka dhigay noloshoodii waxay ku iibiyeen yani in ay helaan raxmadna inay helaan ummaduna badbaado oo amni ay hesho marka saasa culimadii loogu baahan yahay laakiin caamana coodkii ku dagaalamaysa waad aragtay galmudug NGO waxay noqotay dibadda inta laga yimaado dool loogu yimaado inta jagada laga qaato diyaaradda laga raaco ee haddana markii xogaa ay dhamaato haddana dadka xogaa lacag inta loo keeno haddana laga dhoofo oo aan dadkii ma shabaab haysta madax furasha loo haysta deegaamadii loo haysta xataa dadka marka arrimahaas oo dhan waxaad xogogaalad ka tahay iska yeeli waxa waaye qof kasta oo Soomaali ah waa u baahanaa inay gacan siiyaan oo nimanka anaga gacan siiyaan annakaaba waxaan leenahay oo ku baaqaynaa Soomaaliya ha u midooda nimankaas kan karada ah oo ummadii aad ogeydeen sidii u baabi'iyeen 14 Oktoobar oo hilibkii ummaddu isku darmay ayagoo dibad iyo daakhilba ka wada yimid oo deegaamadoodii jooga saad ogeyd u gubay war dadka noocaas oo naxariis laawayaalka ah aan u midowno marka inaan iska kaashano oo qolo walba heba qoladay wax ku tari karta wax tarto taasi waa mid aan u taagano oo ku boorinayno ciidamada aan wadana annaku waa ciidamadii qaranka Soomaaliyeed weey waa ciidamada badbaadada galmudug weey waa ciidamadii badbaadiye deegaanka galmudug ay ku faanayso dadkii madaxooda ku badbaadiye weey marka galmudugna annaka dhuusamareeb isugu keenay annaka yani gogasho u dhignay systemka wixii ka khaldamana in la saxo waa midaan u taaganahay in la saxo aan lagu danaysan waa midaan u taaganahay maamul goboleedka galmudug waa midkii aan aasnay oo u tanaasulnay systemka cidii ku danaysatay oo yani dan gaar ka raadsato oo aan dadka u danaynayna waa la wada arkayaa waana saxaynaa di Allah maya wixii xunna kuma taageersan wixii wanaagsan oo ku taageersan waxaan uga jawaabayaa hadalkaas oo kale waa dacayada dalley kooxda dalley dacayadooda waaye marka oo raba dad israba ama wada dhashay ama waalid iyo walaal isu ah ama yani niya xaaskiisa inay ku kala gooyaan dalleyda dacayadoodii waaye taas jawaabteedu intaas uga gudbaya markii ahlu sunna ay joogtay amniga waad ogeed sida uu ahaa dariiqyada iyo guryaha iyo magaalooyinka oo dhan banaanka la iska seexanay bal waa la yaabana amniga deegaamada uga sugnaa dhismaha aad sheegaysana kii ka socda markaas badnaa iskaba dhaaf midkan hadda khaaska ah oo qof walba oo yani wax sameysanahay mid guud oo hadda galmudug laga sameeyay annaka bacdigeena waaba la isweydiinayaa adigu dibadda adoo joogay inaad u jeedo anigu ma aqaan oo aad aragtay marka galmudug waa xogogaalan u nahay waa naqaana deegaamadooda naqaana waxa la wixii yani dadkii ka soo shaqeeyaan ahayn dadkii mas'uuliyiintooda baan ahayn marka horumarkeeda midka ugu weyn waaba amniba mid amnina waa midii ay haysata asagina waa la tirtiray meel lagu kala qaxayo qof walba heba waaba iska niyad jabay oo yani markii qaraxi lagu sameeyay wadadii ay go'an tahay gurceel waa caasimadii ganacsiga galmudug weey ha ahaatee kaala hadda waa kana fiir shabaabkii inta xoolihi ka aruursada ayuu suuqii wuxuu ka qaadaya canshuurta ay ka qaadaan oo kale uu ka qaadanaya asagiina markaas ninkii xiradiisa labada ridna shabaab uu ka qaatay kalena uu soo saartay meesha lagu wada gadahaya arrinkaasina arrin waxa waaye mas'uuliyad darra wax mas'uul oo ka hadlaana arkimaysid arrinka marka dhibaatada ah oo saasa horumar miyaad adigu u taqaana maya horumar maahan qof aqlihiina u fahmi maayo horumar u fahmi maayo waa dib u dhac meeshii ugu hooseyda waay marka dib u dhacaasna waa mid aan leeyahay sida uu ku yimid iyo sababta keentay
وإن لا يسكور صدا لجانا وده هذلا ديجان كيدتكو ديجان كي يعني ودتك واحد حياة هرجل مدقور أمو كده حياة الدولة الفدرالية الصومالية وحي مركز قلب يوبا هانتا إنه يكون تاجرته أو أي مثلا يعني كوج عن سيده وواحد لو باهي هاي لكن وحي دبعته وكينا هي قلب وحي دبعته وكينا يا مام القبلية طبعا إن أي كدايان ومدة أنا قبضنا مر والبابا هورت أنك واتشوجناه ديب ما أنا صنع ما أنا متجمع وان شوجناه أنك وحنو شوجناه هدف كان وياه الدجاج ماذا يضطك إني بدبادان دينا والدنيا بإني بدبادان واي وحلا جبت بادينا هي وقدرن هدرنا وأنا من كخوارجته الشباب وي مركا بدبادة ده سن وشوجناه ضدك برناه وضدك أنو شجناه هدي حاجة وحبرشة تاي هدي تاي قفك فكري جيس ولا بدباديو وهذا رفت إلما يرير لو قان حناي إنه حسبوا نفتي إسقارحيو مدح إسكتشرو على لو قان عنايا ديجامدا كم يسجرين إن مثلاً بأرمها النوع عاصو كليتا ضدك اللبرو هدرتان waxa waaye afkaartii ayaa soo dhex gashay deegaamada oo dhan waxaan doonaynaa waxyaabaha noocaas oo kale in laga dagaalamo maamul goboleedyada ugu baaqnaa dawladda federaalka aan ka gacan siinayna hadafkeena annaka iyo ujeedadeena aan annaku doonaynaa waxa weeye in lala dagaalamo si wada jir ah nimanka kaan karaha ah ee ummadii ibaadinayo baabi'inayo cidna aan reebaynin in lala dagaalamo oo deegaamada laga dahiro wixii afkaarta ka soo noqonaya wala yani la yiraahdo ka soo noqda wixii aan ka soo noqoyna yani lala dagaalamo oo dadkii laga ilaaliyo waxa weeye runtii wax waajib oo nasaara way annaguna mas'uuliyiintii waxaan nahay xaqii diintii wax laga weydiinayay xaqii yani shacabkii bulshadii wax ka weydiinayeen marka ayakana waa ku boorinaynaa nafteena waa ku boorinaynaa hadafkeena